wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay fiidkii soo gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waqti gaaban waxay ku hakadeen magaalada Nairobi oo ay transit ku aayeen halkaas oo ay kula kulmeen safiirada Soomaaliya u jooga dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga iyo qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Kenya. madaxweyne Shariif ayaa waxaa safarkiisa ku heliyay wasiirka gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise iyaguna lugta soo mariyay wadamada Djibouti iyo waliba Uganda halkaas oo ay kulamo kala duwan kula soo qaateen madaxda wadamadaasi iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. wafdiga madaxweyne Shariif ayaa waxay ku wajahan yihiin wadanka Mareykanka halkaas oo ay sheegeen inay ugu qayb galayaan kulamo looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweyne Shariif iyo wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa tababar ugu soo xiray dalka Uganda ciidamo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi lagu tababarayay waana la filayaa inay ku biiraan ciidamada dowladda ku-meel gaarka ee gudaha dalka Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise waanu kala kulannay gudaha garoonka diyaaradaha Nairobi ee Jomo Kenyatta ayaa ka warbixinaya waxa uu safarkooda ku saabsan yahay. runtii tegitaanka Uganda dhowr wajiib u lahaa ugu horeeyo ah inaan madaxweynaha israagnay dowladda oo aan ka wada hadalno ka wada munaqashano maanta horumarka laga gaaray xagga amniga iyo dib u xiraynta Soomaaliya sababtoo Ugandisku waxa uu walaalaheen naga garab dagaalamay oo ka qayb qaatay si weyn uga qayb qaatay la dagaalanka Al-Qaeda ee Soomaaliya joogta. marka aad buu u farxay madaxweynaha Uganda runtii maanta horumarka la gaaray xagga security-ga. dabeedna maalintii ku xigtay waxaan tagnay isla maalintii waxaan tagnay Bihanga meesha ay training loogu soo xiray 600 oo in ka badan 600 oo askari oo runtii tababar heer sare la siiyay saraakiil xataa ku jirtay saraakiil hoggaamiye oo iyo gruubo badan oo takhasus kala duwan xagga militariga soo bartay iyagana waan soo aragnay community-ga Soomaalida ee degan magaalada Jinja oo ka baxsan magaalada Kampala waan soo aragnay ka bacdina ugu dambeyntii waxaan la soo shirnay ardayda reer Uganda Soomaalida wax ku baratay Uganda oo adigu ilaa dhowr boqol waa waxay gaareen 2,000 laakiin ilaa dhowr boqol baa meel noogu yimi oo iyagana la hadalnay oo aan kala dardaarnay runtii mustaqbalkooda iyo waajibaadkooda dalku hooyo ku leeyahay in loo baahan yahay ku soo noqon dalka iskuulada dhameystaan. haddaan kala hadlo xagga imika transitka ku nahay Nairobi waxaan ku soconaa sida sheegtay ogtahayba New York iyo inta security council-kan hortagayna oo runtii aan qadiyadayda hordhigayna madaxweynahana ka hadli doona. marka waa muhiim weey maanta in runtii adduunyada ogaato horumarka Soomaaliya ay gaadhay ama dawlad dhis ha noqoto ama siyaasad ama xagga security-ga. marka anagu aasaasan ku soconaa. Xuseen Carab Ciise oo ah wasiirka gaashaandhigga ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in qaar ka mid ah ciidamada dowladda ku-meel gaarka aysan qaadanin wax mushaaraad ah. runtii waanu ka fikirnaa laakiin waxaa runtii la yaab leh inaad maaragtay aad u haysataan inaan lacag qaadanin. saan idin sheegay dhowrkii bilood soo dhaaf way qaateen ilaa August lacagtooda waa u diyaar. marka fikradan lacag ma qaataan meel ay ka timi garan maayo waa iska propaganda ay leeyahay laakiin runtii annagu waajibaadka dowladda waxa weeye in xoogga dalka Soomaaliyeed ma aha lacagto kaliya in xataa daryeelkooda caafimaadkooda systemka ay ku taageerayaan loo sameeyo. imika sababtay waxaan dhamaynayba dib u habeyntii xataa ciidamada qalabka sida iyo afar sektor loo kala saaray oo saraakiishooda loo sameeyay waanu sameynay. marka waxa weeye annagu marnaba ma ogolaanayna ciidamadana ay mushaar la'aadaan. annaguna runtii ujeedadeedu waxa weeye in la dhiso ciidan qaran oo runtii difaaca dalkooda iyo caalamka. runtii waad ogeyd marka hore marka la dhisay ciidamada waxa lagu dhisay ciidan iska maleeshiyaad waxa la sugu yaaray laakiin maanta waxa naga go'an inaan tababar u sameeyno oo la isku dhafo. saad ogtahayba qolooyinkan imika ka soo baxay maanta u soo xidhnay tababarka waa group la keenay gobolada oo dhan. markay tababarka dhameeyaan imika waxa la geenayaa xero u gooniya iyaga noqonaya koox isku xidhan. marka kuwa dambe imika la wadana la gurayo taasoo kale gobolada dhan bay ka imanayaan. marka saad aragto imika waa laga baxay marxaladii hore marxaladda imika lagu jira waxa weeye ciidamo isku dhafan oo Soomaaliya dhan goboladeeda ka yimi la sameeyo oo saraakiishooda loo sameeyo oo runtii la caawiyo. lama oga haddii madaxweyne Shariif uu ku tagayo dalka Mareykanka qorshe gooni ah oo ku saabsan howlaha hirgelinta dastuurka oo muran ballaaran ka taagan yahay xilligan waxaase safarkiisa uu ku soo aadayaa xilli uu socdo abaabulkii ugu xoogganaa oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku doonayaan in mar kale ay kaga soo dhex muuqdaan siyaasadda dalka Soomaaliya kadib waqtiga kala guurka oo bisha August la filayo in dowlad cusub la magacaabo.
محمد عثمان عمر حبيب رويال تي في نيروبي.